اوكي واسoo noqday waa iga go'ay maxaa yeelay waa soo waceysaan mushkiladu taas waa hay soo wicina soo idin ma dhihin qofkii intaan live ku jiro soo wacda blogan saara ogaada live intaan ku jiro qofkii soo wacda waa blog kuma talagelin aniga inaan cid kale waa xilli dambe waay mana ku talagelin cid kale inaan camera wadaajiyo aniga ayaa raba muwaadin ahaan waxa aan raba inaan ka hadlo qofkii soo wacda I will be blocked okay marka mudane madaxweyne aad iyo aad ayaan kuugu hanweynaa runtii markaan runta kuu sheego aad iyo aad aan u niyad jabay waxaan u niyad jabiyay wax kale ma aha shalay markii aad imaanaysa aad iyo aad aan kuugu taabacsanayn aad iyo aad aan kuu soo dhaweynay aad iyo aad aan kaaga dhacsanayn ma tihid nin xukunka ku cusub nin ra'iisul wasaare wadanka ka soo noqday ayaa tahay nin waxaad tahay very talkative ayaad anigu waan xasuustaa aniga amarkan gadaal kaaga dhacay ma aqaano haddii lagu haysto ood la haysto tahana inaad noo sheegto waa fiican tahay maxaa yeelay wax alla waxaan ka qaban karnaa ka qaban lahayn dad weynuhu kicitaankooda wax yar ma aha midda kale magaalada xamar oo maalin walba qarax ka dhacayaan oo maalin walba lagu dul dagaalamayo xanuunkeeda ay leedahay iyadoo caasimad ka sokow aniga waa baladkaygii meeshaan ku dhashay una dhashay waaye aad iyo aad ayayna ii dhibaysaa maalin walbaba in lagu dul dagaalamo hadda marka barito dhowr saacadood aa naga xiga aniga ayay saq dhexe ii tahay idinka waagaa idin bari raba maxaa la samaynayaa waaye marka saddex leemid noqone beledka maa ku dagaalamaysiin laba shir maa la kala qabanaa mid mudday hogaaminaya iyo mid jawaari maa la kala qabanaa markaasaa laba go-aan laga soo kala saaraa laba dowladood maa magaalada ka kala dhigaysiin ya xalka saddexaad maxaa waaye ii sheeg ma jiro xal saddexaad ma jiro ya in ilaahay subxaana watacaala ha idin kala caymiyo ma ahane xal saddexaad ma jiro ma fahamta marka mudane madaxweyne adiga si qaasaan kula hadlayaa sababtu waxa ay tahay wax badan waa ogahay aniga live-ka marka adiga kula soo hadlay waa daawataa waa la socdaa wax badan oo hoosaan ogahay please you have to speak up inaa hadashid waaye inaa mowqifkaaga caddaysid waaye tusaalayaal cadcad waxyaabaha iwalwal gelinaya oo adiga iyo ra'iisul wasaaraha aa ku dhaqanteen tusaalayaal cadcad ayaa aan kaa siinaa wadaadkii qalbi dhagax ahaa markii la dhiibay dad badan ay dhibaysaa hadalkiisa balaaya horta idinkagama horreyn run baan idin sheegayaa balaaya idinkagama horreyn qalbi dhagax dhiibistiisii markii la dhiibay maalintii xigta oo aan filanayna inaad hadasho adiga oo aan hadlin tuutaad soo gashatay wadanka waxaad gelisay xaalad degdega maxaa ula jeeda meeqa jeer wadankan xaalad degdega gelisay mudane madaxweyne odanna ka saarin bal wadan xaalad degdega la gelinayo oo laga saaraynin ee haddana asoo tii ku jira mid kale la gelinayo ee laga saaraynin ee haddana asoo tii ku jira mid kale la gelinayo what is wrong with you maxaa kaa qaldan midda kale dad buugta kuu haaya oo hadalkaaga ku xasuusiya oo falalkaaga ma qabtid ya ma qabtid staff kula shaqeeya staff ku xasuusiya hadalkaaga ma qabtid miyaa mudane madaxweyne calool xumo weyn ay ugu haysaa أنا أوين ديار أمي أنا كمان ربنا نويو because in the beyond هو أوجه لكن why ما حكى قلدن ودن أنت ستوتا تسوق شنو ودنك واحد قرني حالة دقدقة حتى أنا ما كبي حيني صدق أنا أصح حالة دقدقة كنت جدا متكلم قرني أنت اللي وقرك ودن صدق جر حالة دقدقة اللي ما كرت ورصو هيساوي عنا إذا ما دهن هيساوي عنا إنكار بعض قبطان إذا كان أوكي تاسوه مد كلا فيري مدن رئيس الوزراء أديك نين دلنا يرى آياتها نين لوحن وينها آياتها نين وحاتها runtii aan meel wanaagsan ka filaneen aniga waxyaabaha beenbeenta ma aamino ooyal angaas u shaqeeya iyo aniga ma aamino laakiin hadda waa ku tuhmay waxaan kugu tuhmay marka aad wax qalada dawladda samayso ilaa dawladda madax ka ah
أدا نينك رئيس وزراء مدحوينها مركا laga reebo wasiirada dhacday ko simada wax qalada markaad samayso wax kala nagu ma weelinay dadku maxoolad mooday wax qalada ha sameeyna wax kala nagu ma weelinay qalbi dhaba xal dhiibay waa soo boodo waxa tir jaamacad bay dhaba ku taala ka khudbayso waxa tir ardayanka aan mushaarkeyga uga bixiha waa fiican tahay laakiin intaana waxba dhiibin xa u bixi waysa mushaarka ya sadaqada marka loo baahan yahay waa mar walba loo baahan yahay qaladaad kaaga inaad wax kala ku qariso ma aha qalad way absolutamente okay markii wax dhacaanba oo aad qalad samaysaba wax kala ku soo booday jawaariyaad isku taagtay waxaad leedahay waxaan xamaran ku mara maxay toon oo look oo waxaan u kuurgalaa nabadgelyada xaq nabadgelyo kuurgalay adaaba dagaalka ciyow haayeen mid kale mid ma ogtihiin adiga iyo xildhibaanada lacagta kursiga ku yimid mid ma ogtihiin ya mid ma ogtihiin tusaale idin soo qabsanaa si dadka da'yarta caruurta yaryarna ay wax u fahmaan tusaale idin soo qabsanaya waxa waaye faan wax ma lagu noqdo ficil wax dhala ficil ويلا واك سمينا واك دحا واك وحينا wax ay taraysa male dadkan baahan ee baaba'san ee dawladnimadu dilootana waxba ma u tarayso ficil ayaa la rabaa waa ogahay wadanka inuu dhib badan yahay waan idin garaabaya in culays fara badan oo idin saaran yahay waa ogahay in maxay ahayd toona afarta dhinac leedin ka jiidayo waa ogahay in nabadgelyo xumo ay dhinac ka jirto waa ogahay in qaraxya la iska ilaalinayo waa ogahay wax kasta waa ogahay bad أنا إلما منهن وده كان واحد للانهاي for God's sake سكست وده كوجا مكنا واحد حجوجنا ماني وده كان حجوجنا فإذا ما نجوجا هرجيسان جوجا محيط وحاجة نجوجا بنت اللي أنا نجوجا everything وأجناي okay alright هنا صد المهي ونلا دكانتان معها مرك المهي إن نلا دكانتان وكلات معها كلام سمينا وحكلات كدوجا كلات سمينا وحكلات كدوجا وقلت كلات سمينا وحكلات كدوجا no أنا إما لص السبعة مني okay waxa ku soo haray waxyaabaha qalbinaha oo qaracanka laga qaadayo oo qof kasta oo aqal oo ka qaracmaayo oo dawladda ay bilowday dawladana qarar aan jirin baa idin sheegay caawa الفان دولار lagu iibsado idinka noo bilowday oo waliba inta xafiis loo furto faanki intuu la geeyay waa yaabe faan in dollar lagu iibsado idinka noo bilowday حكينا جيس فان حكينا جيس أنا إنا أقول ستانا إذا ربنا مرة إنا دعدان لكن فان كيني حجابوا النجاي أنتوا نطلق فان كيني يا أنت إذا كذب فان إيسا عاو هدينا يسكو قار قف جوجي سمله أراصد ما ركع قبل الأراساية أراس كذا حفلة ده ما كايب قشان ودي حبات كايب قش أراس كتكتو دمر بقى برامبرة أنا أكتيني كلام كان هرت قربها واساس مالك الدمر برامبرة دمر كاس برامبرة هذه أراس كربشة كدعته وقبل أراس كأي عرسته دمر كأيكو كبل لهين أو دعس ولا أو كبل ولا أي أباب كبحة ذاتك إذا كدر برامبرة يا ودمر كاس برامبرة كلاواي هذه أراس ده عرسته أو إنك هذا عرفتان ما أنت أو ليش أنت بلايا كدعه الدجال كدعه يا إيه إسقبصوا الدجال أدولي إذا كسروا بتوين ماشى أو كدعه كواس waxay noqonayaan islaantii arooska ka baraan burays waana cararayaan weligay ma arag dawlad rabta inay faan waxa ku gadato aadidkay abata cimraadkay intaan dacdaan aan jiro ma aan arag war si kasta mid kale mid ma ogtihiin especially mudana ra'iisul wasaare adiga mid ma ogtahay walaalkay tahay adeerkay tahay aniga kursi hawiyaad ku fadhidaa runtaan ku sheegayaa bal waxa la yiri walaalka laba jeer u heelay markuu gardaran yahay oo heelay oo gardarada ka qabo marka laga gardaran yahay oo heelay waxaan rabaa inaan ku sheego aniga oo dhanaba madax dhana ay xanuuna wallahi waxaan rabaa inaan ku sheego hadii xoog wax lagu fulinayo niman hadda sanatara ah oo baarlamaanka ku jira madaxweynayaal ahaa lahay weligoodna xukun ma taaban adeerkay Muuse Suudi madaxweyne u ahaa lahay adeerkay Cabdi Qaybdiid madaxweyne u ahaa lahay
war intaas oo qof aan madaxweyne ahaa lahay morgano intaas oo qof waxagoodii loo haystaa madaxweyne ahaa lahay bal meeqa qofood baa xoog madaxweyne ku ahaa lahay haddii xoog wax soconayo adeer xoog ma shaqeeye system baa shaqeeye dowladnimada system waaye systemka ka shaqaysiiya annagana annagoo baxaagi ah ayaan idin garab taaganahay annagoo muwaadiniina aan idin garab taaganahay waxba hana yasina si kastoo singalmaadan unahan banaanka jirno wax kasta waagno idinkama dhagayarin ya idinkama dhagayarin ninkii wuxuu yiri nin baa naag waxa leer wuxuu uga dhalay canug si tuuga ah oo qudbasiro ah oo aan la ogeyn hadhowna waa inkira canug naagti waa qudbasiraystay meherkeedii lama ogeyn uura yeelatay wiilow ka dhalay waana inkira adaga ba dhal loo yiri saan loogu ogaanin wiilki waa weynaada reerkii oo u dhaan tagay islaanta odagiina islaanti oo qaboosna u dhaan tagay aakay isugu tagaan wiilkii aabihii wiilkii waa yar yahay asagu wadaanta oo soo jiidi maagay oo jugsiye odagay wuxuu rabaa canugan oo ma dhalin jiri inuu ceelka ku rido wuxuu yiri aabbo ceelka ha igu ridno yiriga ma dhagayirina dhasho waqti hadda annaga idinkama dhagayirin idinkoo wadanka haysiin aan idin ognahay wax alla iyo talaabadaad maalin walba qaadaan marka gardarro ma fiicno sharciga oo la hareer marana waxay dhashaa sharci kale oo la hareer maro midda kale waxaad ogaataan haddii sidan baarlamaanka lagu dudumiyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha idinkuna ismoogaan maysaan maalinka dambe idinka la kala qabqabanaya mana rabnayna intaas nala gaarto fadlan sharciga ilaaliya hadaa ninkan mooshin ku filan u haysaan oo aad sharci ku ridi kartaan sharci ku rida haddii aadan haynina oodan sharci ku ridi karina iska daaya ninkan shaqadiisa ha qabsado idinkuna shaqadiisa qabsada wax fara badan oo hawl fara badan ayaa idin taala dowladnimadu fan maaha fakfak iyo fudayd maaha inda faraka galis maaha ma fahamtay sharcigana fogey maaha fadlan kala jeesta nin walba hawshaada qabso wadankaana badbaada u baahan yahay badbaadiya dadka muwaadiniinta ee talada fiican idin hayana talada ka qaata maxaa yeelay talo waxa la yiri adiga ku noole ayada kuguma noola aniga wixii muhiim ah caawa oo sheegi lahaa intaas ku soo koobaya laakiin ballanteenu waxay tahay in dowladnimada dudumka laga ilaaliyo dowladnimada dudumida in laga ilaaliyo dalka idinka kaligiin ma lehidin annaga waa idin la leenahay muwaadiniinaan nahay walaalihiinaan nahay waan u diirnaxaynaa oo dalkan u diirnaxaynaa shakhsi jacayl gooniya naguma jiro laakiin wadankan u diirnaxaynaa idinka ayaa ilaahay idin siiyey xaq in aad maxay ahatoona iyo waxaaga inaad xukunka noogu fadhiisataan waana ogolnahay waana idin taageeraynaa laakiin waa in aad wadada wanaagsan raacdaan oo aad sharciga hareer marina sharciga ha hareer marina madaxweyne محمد عبد الله فرماجو مدن الرئيس الوزراء حسن علي قيره مدن جواري adiga hadda waxaan ka sheega ma hayo sharciyeed ku taagantay saasan kugu ogaa sharciga saas uga taagnaw sharci ilaa ay kugu ridaan ma ahane ha bixin ma kugu ogi inaad baxdo mudana ra'iisul wasaare rabshada iyo fudaydka iyo fakfakta naga dhaaf nin yaraatahay tartiibka caga dhigo noo tali ra'iisul wasaare tahay 3 sano oo ku dhiman aan ku taageerno ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha isla shaqay waa kala fuqeen inta booga ayna gaarsiiso dawladihii hore ma maleyn kartid mar kale inaan maqalna ma rabno mudana madaxweyne adiguna afdhurta ka bax oo hadal dadka war hadaadan hadli karin oo adiga aadan hadli karin qof khudbada ku akhrisa samayso waa ogaha aniga mental health aan barto qofka markuu too much stress yahay ma hadli karo inuu dhunto jecel yahay waa la socdaa but please hadal sababtu waxay tahay hadalkaaga ayaa dawladnimada iyo hamigeeda iyo socodkeeda ku xiran wadankaana ha foorto gadinina wax badan oo dhibaato laga soo maray xoog cid haday wax ku noqonayso kuwa sanatarada oo wax kale ka badi waa inay sanatar noqdaan saacada madaxweynayaal noqon lahaaya ya aad iyo aad u mahadsantiin intii daawatana aad u mahadsantiin halkaana hadal ku soo koobaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا كو دعيسانينا إن شاء الله إذن كإلهي إن أينن واحد باطاء آنا يدعين أو داد كان وحد الصوء في جرمان آد أنا أمهد سنتين
ballanteenu waa shaqo dowladnimada oo la taageero sharciga oo la isgarab taago xaqa oo loo dadaalo oo la taageero iyo iyada oo la is ixtiraamo systemka dowladnimadana la dhowro. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.